wafdigan ka socday hay'adaha qaramada midoobay ee maanta soo gaaray magaalo xeebeedka Hoobiyo gobolka Midowga bartamaha Soomaaliya waxa halka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug waxayna wafdiga iyo sidoo kale mas'uuliyiintuba ay kormeer wada jira ku tageen dadka deegaameysan iyo xariyaha barakac oo saameynta ku yeelatay abaaraha ka jira gobolka Midowga bartamaha Soomaaliya iyo sidoo kale colaadda maleeshiyaadka nabadiidka ee Al-Shabaab kormeerka kadib waxa si wada jira warbaahinta la hadlay gudoomiyaha magaalo xeebeedka Hoobiyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Galmudug عمر حسن حاجي waxaan ku faraxsanahay maanta imaanshaha wafdiga noo yimid oo u yimid booqashada magaalada iyo baahiyaha ka jira inaan gudbino runtii marka la isku celceliyo dadkii yimid tiradoodu waa ilaa dhowr iyo 10 qofood ku dhawaad oo ka kala socda WHO ka socda hay'adda UNICEF way ka socdaan hay'adda UNDP way ka socdaan FAO way ka socdaan WHO way ka socdaan WFP waxay ka socdaan dhamaan hay'ado fara badan oo kala duwan waxayna maamulka degmada iyo NGOs-ka iyo wasaaradda ay kala tashanayeen dhibaatada baahiyaha ee jirta deegaanka waxaan leenahay welcome waana soo dhaweynay waxaan rabaa marka wixii information oo ku saabsan humanitarian ayaga naga dalbeen ee baahiyi jiray waa u gudbinay wixii kale tan waa u gudbinay marka waxaan rabnaa inaan dilaa yiraahdo shaqada ay wafdiga ay noogu yimaadeen inay sida ugu codsanay in uga soo jawaabaan rajeynayna waxaan joognaa magaalada Hoobiyo oo aan ku soo dhaweynayno hay'ado caalami ah oo hay'adaha arrimaha bani'aadamnimada ka shaqeeya ka wasaaradahan maalmahan waxaan safar ku ahayn gobolka Mudug oo aan xaaladda abaarta qiimeeynay safarkii oo qayb ka yahay kan iyo hay'adahan inay noo yimaadaan Hoobiyana nala arkaan magaalada waxa ka jira ciid aad u socota oo dadka dhibaataysay abaartii oo dadkii si dheereed iyo bad xiranka dadkan waxay ku noolaayeen kalluunka marka waxaasan tusaynay adigu si fiican u soo dhaweynay waxaan geynay ilaa iyo kaamamna waa soo tusnay istalkii waa soo tusnay hadda shirin halkan kula qaadanay haddana waa celinaynaa insha Allah bilkariim marka muhiimadda safarkan wuxuu ahay in aan magaalada Hoobiyo tusno bal indhaha caalamka nooc ay tahay wixii su'aalo iyo jawaabo u baahnaan muddo hal saac shirin qaadana waa isdhaafsanay waan u gudbinay insha Allah bilkariim waxaan rajaynaynaa inay jawaab macquul ah ka bixiyaan waxa laga hadlayay inta badan waxay ahayd abaaraha waxa Soomaaliya ka taagan arrimaha bani'aadamnimada waayo daran waa abaaruhu waxa kamid tahay crisis-ka wadanka ka jiro disaster-ka ama musiibooyinka dhacay kamid tahay marka abaarahay ku base garaysna totally abaaro dhibaatooyinka geysteen baa noocyo badan ah oo laga dooday laakiin base ku abaaraha Galmudug waxay kamid tahay maamul goboleedka ugu daran haday saaxeen waa kalabaad inkastoo Soomaaliya ay wada saameysay marka inta badan hay'adaha UN-ka iyo wufuudan caalamiga waa degeen inta badan Hoobiyo hadda aan iyadana keenay muhiimadda aan kala hayna waxay ahayd dawladdu way report garaysay abaaruna jiraan dhacaan iyo xaaladaha waxa dhan report-kana ma baaqdo laakiin haddana in qolo kale anaga naga duwan inay report-kana la aragto baan u keenay u yimaadeen marka saas